الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلا إذا الهانتين بكسر دوادا برامج كأن بولشة قيبت عافماتك وعنا برامج كأن بولشة قيبت عافماتك كل داون دونتان إسبيتالك جامعة SIU Somali International University ودوان صوبان قلب عصب وعزرها ودلك دبدي ساع إسبيتالك وكسو إبسدي أهنا قلب أديقيسو وصوماليا كل عصب هي هرينا عن لغة أخوانين وعنا برامجك كل داون دونتان أنت وسعانا يو maamulka isbitaalkaasi ee jaamacadda SIU ay leedahay oo aanu ka wareysan doono qalabkaasi bulshada loogu shaqeyn doono iyo sidoo kale aqoonta dhaqaatiirta ka shaqeysay u leeyihiin in qalabkaasi ay ku shaqeeyaan. sidoo kale intaan barnaamijka guda jirno waxaad ku daawan doontaan khudbadaha ay jeediyaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda SIU ee Somali International University gaar ahaan boorka guud ee jaamacadda Yaxya Cali Ibrahim iyo madaxa caafimaadka u qaabilsan jaamacaddaasi علي محمد جمعالي. isbitaalka jaamacadda SIU Somali International University waxa uu ka mid noqday xarumo caafimaad oo fara badan oo Soomaaliya siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan uga abuurmay. waxa uu ku soo hagaagay xilli xarumaha bukaan-eegayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho waxqabadkoodu aanu tayo ku dhisnayn. qofkii tagana la tilmaamo in dawaacadkeedu badan yahay la siiyo bukaanka. waxa bukaan-eegayaashu ay ku macneeyeen dadaal ay qofku u sameynayaan maadaama wadankeenu uu yahay wadan kontarool la'aan ah daawada soo gashana ay tahay mid aan tayadeeda la hubin. waxaan hubantiya intaasi ay ku keentay wadankeena maamul la'aantii muddada dheer uu ku soo jiray bukaankeenuna uu noqday qof boqol ku tali oo wixii la doono afka loo geliyo. daawada oo aan hubanti marin markay wadanka soo galayso waxaa dalka ay ka dhigtay in dad aan ka naxaynin dhibaatada bulshada haysata ay soo geliyaan daawooyin dhacay bulshada inteeda awoodana ay dalka dibadiisa caafimaad u raadsadaan inta kaleetana ay deris la noqdaan daawadaasi dhacday iyo mid aan tayadeedu wanaagsanayn. sidoo kale waxaa laga waayay Soomaaliya qalab tayo leh oo lagu baaro xanuunka dadka Soomaaliyeed ay la daadsan yihiin isbitaalada magaalada Muqdisho taasi oo loo sababeeyay in dhakhtarkii keeni lahaa qalabkii lagu baari lahaa bukayaasha Soomaalida uu uga baaqsanayo ammaanka oo sugnayn lagana cabsanayo inay boobaan manaxayaal aan dhibeynin xanuunka bulshada haysta. ayadoo intaasi dhibaato ee shacabka isku biirsaday ay jiraan ayaa jaamacadda SIU waxay isku hawshay sidii qalab casri ah oo wax uun ka bedela dhibaatada bulshada haysata ay wadanka u keeni lahaayeen. waxaana isbitaalka jaamacadda SIU oo ku yaala deegaanka Geed Jacayl Ex Hotel Dami degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir markii ugu horeeyay uu Soomaaliya ku soo bandhigay qalab caafimaad oo casri ah Soomaaliyana ku cusub oo ka mid yahay CT scan si ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysata uu qayb uga qabto agabkaasi caafimaad ay keeneen. mas'uuliyiinta jaamacadda SIU oo ka mid yahay boorka guud ee jaamacadda SIU Dr. Yaxya Cali Ibrahim iyo madaxa qaybaha caafimaadka jaamacadda SIU علي محمد جمعالي waxay sheegeen in jaamacaddu muddo ay ku hawlaneyd keenida agabkaasi caafimaad isla markaana Soomaaliya uu wax badan ka bedeli doono. in muddo waxaan ku taameynay in mar uun Soomaaliya CT scan uu ka hirgalo inuu ka hirgalo. waxaan xasuustaa 2 sano bar ka hor camal ay ahayd ayay waxay nagu eeday sheeko riyo inay suuragali doonto qalab CT scan ah oo si sax ah u shaqeynayo oo ablaayra oo la arki karo oo yani patientski iyo mataqaana serviceki looga baahnaa fulin karo. hadafka arintaas ayay ahayd. dabcan annaga ka maamul ahaan jaamacadda isbitaalka iskuulka waa hal hay'ad waaye. waxaan mahad weyn ilaahay bacdigiisa aan mataqaana uga mahad celinaynaa dadka isku howla barnaamijkan inay maalgeliyaan. dabcan qof kasta way u fududaan lahayd inay samayso laakiin waxa aad u adag si loogu qanciyo ganacsatada Soomaaliyeed inay u yeeshaan macnaha geesinimo inay maalgeliyaan qalab aan la ogeyn macnaha waxaad ogaan kartaan maleenaya keenitaanka qalabkan dayactirkiisa ayaa ka dhib badan. dayactirkiisa marka waxaad u baahan tahay dad cilmi u leh oo injineer ah oo Soomaaliyana aan joogin marka inay maintain gareeyaan ay arintaas shaqadaas ay qabtaan wax adag waa challenge-ga. marka ganacsado markaas wuxuu ka fikiraa risk factors uu ka fikiraa wuxuu sameeynayo percentage-ka riskiga muxuu la egyahay. laakiin bulshada caadiga ah oo baahida dareemi karta ayaga filosofiyadoodu ma ahan lacag maxaa laga sameeynaa laakiin waxa waaye caqabad jirto inay daweeyaan. marka anaga waxaan arkaynaa caqabad qof hypertension ku dhacay oo kale qolo kale martaqaana injuries karo ama xabada ay keeneen ama waxyaabo kale trauma kale ay keentay in ay dhacayso qofkii in la qaado dal kale lala aado. qaaditaankiisu waa lacag diyaarad in la saaraa marka qaarkood waxa laga inuu koomo qof ku jiro waxa laga yaabaa mataqaana in kumayaal kun oo dollar ay ku baxdo. waxa kale sidoo kale caqabad kale ah
inba dadka dhibkaas uu gaaray aysan u lahaynba tabar dhaqaalahaas inay ku bixiyaan anuu qaadatay 2 sano ba marka qaarkooduna la yaabay xilli sitiskan macquul maaha laakiin waxaa noo suuro gashay maanta alxamdulilah inaan sitiskan keeno oo noo shaqeeyo oo reportkiisa director u sameeyo laakiin waxaa ka soo marnay dhib aad u fara badan waxaan rajaynayaa inay kuwa badan yimaadaan 4-5 inoo timaado iyo weliba inaan ku talagalnaa keeno MRI inaan ku soo rajiyo markaan ka hadlo isbitaalka SIU wuxuu ku tallaabsaday ama rabaa inuu ku tallaabsado proper diagnosis inuu wax sax ah oo diagnosis u gaaro waxaan rajaynaynaa inay taas noo suuro gasho hadda waxaan maraynaa inaan helno CT scan oo ah inta badan diagnosis-ka saxda ah lagu gaarayo cudurro badan oo ka mid ah oo bannaanka loo aadayo hadda lagu gaarayo waxaan rajaynaynaa mid ka sii fiican MRI inaan ugu gudubno oo qaybaha qaarkood weli looga baahan yahay inaan gaarno hadda waxaan helnay exactly aan probeynay ilaa 10 iyo dhowr qofood aan saarnay CT scan-ka reportkooda dirnay exactly reportka wuxuu noo yimi sida saxda noo yimid oo ku guulaysan insha Allah dadkana waxaan u sheegnay sida cudurka ay qabaan iyo mataqaanaa sida looga daaweyn karo inta waa u sheegnay qalabkan casriga ee jaamacadda SIU isbitaalkeedu uu soo iibsaday ma ahan agab horay adeegiisa looga isticmaali jiray Soomaaliya dhaqaatiirteena iyo narsinkeena 22 sano ee la soo dhaafay dalka dibadiisa wax ku soo bartayna kuma tababarna qaabka loo isticmaalo kuwa dalka gudihiisa wax ku bartayna warkooda daa hadaba bukaankii u baahan in qalabkan lagu baaro cidda ugu shaqeynaysa aqoonta u leh joogtana isbitaalka ayaan weydiiyay Dr. Cabdifataax Shariif Maxamed oo ah maamulaha isbitaalka jaamacadda SIU kana mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha waxa uu sheegay in jiraan bukaaneeyayaal ajaanib ah oo isbitaalka u jooga inay ku shaqeeyaan agabkan cusub ee soo iibsadeen hogaamiyaha bukaaneegtada SIU waxa uu tilmaamay in sidoo kale ay ku howlan yihiin sidii ay ku keeni lahaayeen qalab kale oo casri ah oo ay kamid yihiin dialysis machine oo wax looga qabanayo dadka ay daashadeen cudurrada keliyada si uu yiri loo helo daryeel caafimaad bulsho oo dhameystiran xarunta isbitaalka jaamacadda SIU oo ka kooban qayb bukaan socodka lagu eego iyo jiif ayna ka howlgalaan in ka badan 10 dhakhtar oo Soomaaliya ajaanib isugu jirta ayuu xusay in sidoo kale ay diyaarinayaan dhaqaatiir Soomaali ah oo kuwa ajaanibta kala wareega qaabka loo isticmaalo qalabkan casriga ee ay soo iibsanayaan ku soo dhaw TV Kalsan waa ku dhawaa TV Kalsan waa mahadsantiin aad iyo aad oo ku dhawaa TV-ga waa tahay su'aashada ugu horeysa hadii aan ku bilaabo isbitaalka jaamacadda SIU magaca jaamacadda ayuu wataa kulli waa qayb jaamacadii kamid ah waxyaabo u qabta maxaa kamid ah isbitaalka SIU oo loo soo gaabiyo Somali International University Hospital wuxuu leeyahay qaybo badan oo uu bulshada u qabto sida qaybta haweenka iyo dhalaanka qaybta caruurta qaybta qaliinka guud qaybta cudurrada guud qaybta lafaha wuxuu kale leeyahay qaybta indhaha iyo qayb ah shaybaar oo aad iyo aad casri u ah iyo qayb oo raajo ah qaybta imaging oo uu ka kooban yahay x-rayga ultrasoundka iyo markii ugu horeysay aan keenay Soomaaliya qaybteeda koonfurta Soomaaliya aan keenay CT scan waxa loo yaqaano soo intaas qabad ay ku kooban yahay isbitaalka waa tahay su'aalaha kale intaan u gudbin CT scan-ka Soomaaliya kali horay in badan lagama isticmaaleyn imika ay soo hirgeliseen waan oo sabandhigteen shaqaalaha Soomaalida ka shaqeeya isbitaalka jaamacadda ma ku filan yihiin mase waxa jira shaqaale ajnabi oo ku shaqeeya CT scan waa qalab aad iyo aad adduunka dhan casri u ah mudooyinkan ugu dambeeyna adduunka dhan laga wada isticmaalo soo qalabkan aad iyo aad ayay ugu yartahay in dad la helo Soomaaliya oo khibradaas intaas leh soo waxaan badnaa noo joogo dhaqaatiir ajaanib ah oo qalabkaas naga caawiyo saarana beeshinka ayakana noo akhriyaan wixii talooyin iyo tusaalena aan dadka kale u gudbino soo waxaan noo joogto dhaqaatiir ajaanib ayaa nagala shaqeysa qaybtaas marka dhaqaatiir ajaaniba dhaqaatiir Soomaaliya oo loo tababaro oo booskaas qaban karta Soomaaliya ma laga waayay waa qaybtaas oo takhasuska noocaas oo kale waxa loo yaqaanaa radiology department soo aad iyo aad ay ugu yaryihiin Soomaalida laakiin hadda anaga maadaama aan computerka hayno waxaan sameynay koorsooyin ayaan u dirnaa dad arday Soomaali ah oo dhaqaatiir ah waxaan ugu dirnaa koorsooyin si ay u soo qaataan how to done CT scan-ka sida beeshinka loo saaro sida beeshinka technical ahaan ayaan ugu dirnaa koorsooyin soconaya ilaa 6 bilood ilaa 4 bilood waan dirnaa oo si dhaqaatiirta Soomaalida ugu soo faa'iideystaan
waa tahay Dr. Cabdiraxmaan Shariif isbitaalka jaamacaddu dhawaan ayaa la furay waxay sheegteen qaybo fara badan oo ka kooban yahay marka isbitaalada Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa in taqasyo gaar ah dadku ay u xil saartaan oo lagu doorto isbitaalkan maxaa lagu dooranaya leedahay aniga ka agaasiya maamul ahaan isbitaalka Dr. Cabdifataax anaga Cabdifataax Shariif waxa isbitaalkeena oo anagoo nalagu dooran karaa hufnaan soo dhaweyn shaqo wacan qaybta caruurta oo kala dhaqaatiir ayaa noo joogto ajaanib ah oo nagala caawiso qaybta haweenkii dhallaanka dhaqaatiir waxaa noo joogaan oo masaari ah oo nagala shaqeeyaan oo aad iyo aad xataa qaliimo haween meeshaan loogu sameeyey oo Soomaaliya dhan ku adkaatay meelo kale lagu soo sameyn waayey ayaan sameynay qaliin waxaan sameynay buro ka weyn ilaa 5 kilogram oo aan media xataa u soo bandhignay oo adkaatay in meelo kale lagu sameeyo waan sameynay soo annaga ma dhahano adinka ayaa ugu horeeyo magaalada laakiin waxaan leenahay annaga waxa inta yar aan qabano waan hubinaa ilaa iyo hadda waxaan gaarsiisnaa qofka inuu patient kale noo soo wado heerkaas ayaan gaarsiisnaa oo data information waxa la leenahay oo patient wixii macluumaad laga qaado oo wixii investigation wixii history loo sameeyo kale data collection meel ayaan ku aruurinaa in case uu baahdo beri kamaal soo u helo wixii informationkiisi jaamacadda SIU isbitaalkeeda ma u muuqataa haddii uu daboolay qalab casriga ee loo baahnaa ma u muuqataa in daawaduna sidoo kale ay u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed daawada maanta la isticmaalo laga hor istaago waa su'aal aad iyo aad u haboon isbitaalka saa ogsoon tahay wuxuu qaybaha uu leeyahay qayb waxa kamid ah pharmacy supplier ah soo waxaan markas isku daynaa magaalada daawada taalo daawada ugu quality fiican ayaan raadinaa qofka patientka ma ka iibino daawo dhacsan mise daawo adiga oo quality aad iyo aad u yar yahay sometimes daawooyinka qaarna dibadda ayaan kala imaanaa oo daawo la soo hubiyay la soo testi gareeyay oo registered number leh ayaan dadka ka iibinaa soo arintaas waa ku adagnahay kuma fududaan dhinaca daawada marka dadka ay maqlaan isbitaal jaamacad magaceed ka tirsanaya waxa soo xasuusan jaamacadda dhaqaatiirta ama ardayda wax ka barata in ay nurse-ki noqonayaan marka nurse-ki ka shaqeynaya isbitaalka iyo kuwii jaamacadda ma isku mid baa mise difference ayaa u dhaxeeya su'aashaas waa su'aal muhiim ah waxa jiro nursing waxa jiro oo jaamacadda aan xiriir ku lahayn oo jaamacaddan aan wax ka soo barnin laakiin dad oo high experience u ah oo shaqadaas shaqo hufan u ah exam ayaan u sameynaa waan test gareynaa waan imtixaanaa dadkaas ayaa ka shaqeeyo ardayda dhigato jaamacadda SIU waxay xaq u leeyihiin inay isbitaalka imaadaan ku training gareeyaan qaybtooda labka waa imaadaan qaybtooda nursingka waa imaadaan qaybtooda medicineka waa imaadaan soo kulligood waxay xaq u leeyihiin inay ku test gareeyaan shaqaale ahaan hadda waxaa noogu qoran shaqaale kale ayaa noogu qoran oo laga soo imtixaano ayagana ardaydaas waxay xaq u leeyihiin markay jaamacaddooda soo dhammaystaan daraasadooda mise xilligooda kuliyadda markay soo dhammaystaan inay ka shaqeeyaan isbitaalka xaq ayay u leeyihiin ayagana u mudan laakiin hadda intayna soo dhammaysan qaybta ay laga siiyaa ma in ay wixii fiiriyaan oo ay daawadaan amase in ayagu ay gacanta la galaan oo dadkii ay daawayaan waxaa jirto saa ogsoon tahay system ayaa jiro lagu shaqeeya isbitaalka systemka isbitaalka lagu shaqeeyo waxaa ugu horeeya qofka loo yaqaano consultantiga kaas ayaa amarka soo bixiyo qofka waxaa jiro registrar ku xigo oo kale waxaa jiro GP doctor ayaa jiro waxaa jiro senior house officer waxaa jiro nidaamkaas noocaas ayaan ugu shaqeynaa hadda isbitaalka ardayda kuwa dhigto waxa hadda ku jiraan sanadooyinka teachingka soo ayaga wax responsibility ma qabtaan mana saarno just waxa ay kulliye u joogaan inay daawadaan khibrad badan ay ka qaataan waxyaalaha kale hawsha kale waxaa qabta dadka shaqada kule ayaa qabto ayagana waa la tusaa oo waa la tababar ayay ku jiraan hadda midda kale oo la isweydiiyaa waxa ay tahay jaamacadda SIU waa la yaqaanaa isbitaal ayay furatay marka isbitaalka ujeedka loo furay meesha ayaa la isweydiiyaa marka ujeedka maxaa dhihi lahaa haddii aad bulshada u sharaxayd anuu u sharxayo bulshada iga daawanaysa TV-ga Kalsan TV annaga waxaan u furnay isbitaalka kadib markaa aragna baahida badan ee ka jirto magaalada qayb ahaan gaar ahaan qaybta caafimaadka oo baahi aad iyo aad ka jirto siiba degmadan hadda aan deganahay oo waagi aan isbitaalka furaynay aad iyo aad ugu yaraayeen isbitaal meeshan ka agdhow soo annagoo isku dayna inaan dabalno
baahida jirto ayaan haddana waxaan xoogga saarna meelihii ugu muhiimsanaa sida qaybta caruurta oo kale, qaybta dhallaanka iyo hooyooyinka. hooyooyin badan ayaa waxay u dhiman jireen dhiigbax oo iyo foolraac waxaa u taqaanaan. soo wixii oo dhan hadda waxaan sameynay isbitaalka, waxaan u sameynay waardiyo, waxaan u sameynay isbitaalka shifti waxa loo yaqaano shaqada oo kale, oo shifti night iyo shifti day oo kale sameynay, oo shaqada xataa habeenkii inay socoto 24 hours. haddaa salaad subax imaadid oo kale 5 am 4 am shaqaale way joogaan oo ku qoran isbitaalka si ay dadkaas ummadaas uun wax ugula badbaadiyaan. marka dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka marka la isku guud ahaan Soomaali iyo ajaanibta ay sheegto masaariyo inay isugu jiraan imse ay gaarayaan? okay, dhaqaatiirta ka shaqeysa isbitaalka ilaa iyo waa dhaqaatiir ka badan tobaneeyo, dhaqaatiir ka badan weeye oo ka shaqeysa oo khibrado u leh oo takhasus nooc kasta wato. dad 10 ka badan ay ka shaqeeya dhaqaatiir oo takhasus wato. intaas in ka badan hadda waa ku wada jirnaa, waana soo wadnaa inta kale insha Allah tacaala ka dhiman. marka isbitaalka ma waxa la dhihi karaa bukaan socdo ayuu eegaa oo kaliya mise qayb jiif ayuu leeyahay? isbitaalka soo ogsoon tahay waxa uu leeyahay qaybta ugu horeysa oo isbitaalka feeskiisa ah, wuxuu leeyahay qayb oo bukaan socod ah oo OPD department ah, outpatient department oo loogu tagala dadka maalintii uu qofkii calool xanuunayso, qofkii madax xanuunayo oo kale, qofkii qandhayso oo lagu daaweeyo. isbitaalka wuxuu leeyahay qayb emergency ah oo loogu tagala dadka xabadda ku soo dhacdo oo kale, qofka shubanka uu ku hayo oo kale, qofta neefta azmada ku dhigto oo kale. department oo emergency ayuu leeyahay oo qaybtaas lagula tacaalo. wuxuu leeyahay qayb oo inpatient ah oo dadka jiifo oo ay leeyihiin sariiro, uu leeyahay qol private u ah. wuxuu leeyahay isbitaalka theater loogu talagalay qalliimada qaar lagu sameeyay. theaterka ayaa laba kala qaybsan, waxyaalo small injuries dhaawacyo yar ah oo caseska yar hot oo cold case loo yaqaan oo kale lagu daaweeyo, iyo wuxuu leeyahay elective surgery oo qalliimo waaweyn meel lagu sameeyo wuu leeyahay. marka isbitaalka hadda qiyaas marka la qiyaaso intoo kale ayuu qaabilaa maalintii oo dadka qaybahooda markii la isku geeyaa? maalintii birthday markii la isku dardaro outpatientka iyo emergency departmentiga ilaa dad waxaana soo gaaro kontomeeye ka badan, dad ka badan ayaana soo gaaro. even maalinta jimcada xataa annaga isbitaalka waa shaqeynaa oo ma xirno. waa isbitaalka waxa waaye waa 7 maalin 24 saac ayuu shaqeeyaa. soo waana soo gaaran ilaa jimcada 50 kama yaro maalinta intaan qaabilno outpatient iyo emergency isku daro iyo inpatientkaba. markii taa la qiimeeyo hadda dadka imaanaya maalintii oo la qaabilayo iyo capacity-ga isbitaalka ma isdaboolaan mise weli intaa ka badan waad qaabilin karaysaan? annaga hadda intaan qaabilno waxaan awood u leenahay inaan si fiican u qaabilnay oo ayagoo satisfied ah oo qanacsan inay isbitaalka tagaan. intaas ka badanna maanta waan awoodnaa oo inpatientna kale hadday imaadaan maanta waan qaabili karnaa. oo hadda isbitaalka qaybooyinkiisa aad iyo aad u kala badan, dhismo weynna wuu ku fadhiyaa isbitaalka baaxad weyn leh. soo insha allahu tacaala intaas in ka badan labadaba waa qaabili karnaa hadduu ilahay idmo. marka bukaanada imaanayo ma waxay u badan yihiin dad bukaan socda mase dadka jiifka ah inta badan jiif loo qoro ayay u badan yihiin? bukaanada reality-ga u imaada isbitaalka waxay u badan yihiin bukaan socda ayay u badan yihiin. dad waxay u badan yihiin dhaqaatiirta la sameeyo follow up waxa loo yaqaano, sida haweenka iyo dhallaanka oo kale. dadka uurka leh waxay sameeyaan waxa loo yaqaano follow up oo dhaqatarka ay la socdaan, uurkooda ayaa la baaraya, bishuu maraya, kaadida sida ay tahay, dhiigga hadduu kacsan yahay, sokorta haday kacsan tahay haddii kale. qayb bukaan socda wuu leeyahay isbitaalka, taas ayaana aad iyo aad u badan everyday. dhowaan waxaa mar la soo bandhigay qalabka hadda city scanka iyo aad sheegtay oo mas-uuliyiintu ay soo bandhigeen isbitaalka iyo jaamacaddu ay sheegeen in laga maarmi doono dad Soomaaliyeed dambe loo qaado dalka dibadiisa. marka capacity-gaas uu dabooli karo baahida dadku ay u qabaan in dibadda ay caafimaad u aadaan, ma isleedahay waa jirtaa maanta? alxamdulilaahi, taas waa ilaahay mid loogu mahadcelinayo in maanta Muqdisho uu yaalo city scan. oo maanta waagii hore qofkii city scan u baahdo oo ku khasbanaan jiro inuu dibadda u safro, wadanka uu ka baxo ilaa ay safar dheer uu galo, tigid ka baxo, visa laga qaado, lacag kharash badan ayuu qofka gali jiray oo intaasoo boqolaal oo dollar ah. soo maanta ilaahay wuxuu ugu mahadiyey asagoo Muqdisho joogo isbitaalka SIU hospital ee ku yaala degmada Warta Nabadda, gaar ahaan geed jecel X Hotel Dami, inuu imaan karo within 24 hoursna wuxuu u safri lahaa uu ku heli karo xamar asoo joogo. soo baahi aad iyo aad u badan ayaa dhinacaas ka daboolna ayaan dhihi karaa.
marka baahida dabooshaan waa run baahida dabooshaan badan kulay dadkuna way arki doonaan baahida dabooshaan intay gaarsan tahay marka ma isleedahay waa gaari kartaan inaad guud ahaan baahidaas aad cirib tirtaan mise jiraan hadda dadaalo kale oo aad ku sii kordhinaysaan qalabkeena alxamdulilah horta waxaa jiro dadaalo badan anaga dadaal nagama dhammaanayo waana waxa aan u taagannahay inaan ummadda shacabka soomaaliyeed inaan u khidmayno hadda oo waxaan keenay combyuutarkii loo yaqaano CT scan waxaa hadda qorshaha noogu jiro oo dhowaanna aan rabnaa inaan keeno qalabka loo yaqaano MRI oo qalabka ugu dambeeya adduunka oo caafimaadka uu discover gareeyay oo la ikhtiraacay qalabkaas inaan keeno waa rabnaa qalab loo yaqaano mashiinka loo yaqaano kidney dialysis oo kale xataa waa noo qorshaysan yahay inaan keeno soo intaasoo qorsho ayaa noo socdaan waxa hadafka aan leenahay waxa weeye inuu bukaanka soomaaliyeed uu aan uga haqabtirno aan baahidiisa caafimaad aan daboolno uusan u baahnaanin qofka inuu hadda kadib dibad iyo safari tigid dam uusan ka bixin taas ayaana ah hadafka aan leenahay iyo boontiga aan rabnay inaan gaarno dhowaanna waan gaari doonaa insha allahu tacaala hadduu ilahay idmo daawadayaal sida aad barnaamijkeena ku wada daawanayseen waa markii ugu horreysay ee bulshada soomaaliyeed ay muqdisho ka helaan qalabkan casriga ah gaar ahaan CT scanka oo bulshada soomaaliyeed markay u baahdaan in caafimaadkooda lagu kontaroolo dalka dibaddiisa loo aadi jiray mas-uuliyiinta isbitaalka iyo jaamacaduba waxay isla ballan qaadeen in qalab kaleeto oo ka casrisan kan ay kusoo kordhin doonaan qalabka hadda ay kusoo kordhiyeen isbitaalkooda ah isbitaal dhowaan la hirgeliyey guud ahaana barnaamijkeeni bulsho qaybtiisa caafimaadka intaasaynu kusoo afmeeraynaa anigoo caliyaraa iyo barnaamijkeeni la socodsiinayay waa farsamadii iyo kaamiradii ayuub nuur cumar jid fure intaan barnaamij kalamida kulmi doono waxaan kagu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu